بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أن مقبولك iyo xadiidkii la aqbalayay ayaynu ka bilaabaynaa marka su'aalihii markaan inta ku dhamaysano xadiidka la aqbalayo muxuu yahay xadiidka aynu xujaysan karno oo aynu daliil ka dhigan karno oo aynu ku camal falayno aynu u isticmaalayno axkaamtii diinta iyo ku dhaqankii sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam muxuu noqonayaa maxaa shuruud oo ah maxaan ku ogaanaynaa maadaama uu inagu yidhi aaxaadka waxaa ku jira maqbuul iyo marduud maqbuulkii la aqbalayay sidee baan ku gaadhaynaa darajadaas inaan xadiidkaas aqbalno oo aynu kaga soocayna kii marduudka ahaa ee aynu diidaynay marka intaan maadaama ah, qayb ka mid a xalaqada aan kitaabkii risaalada soo akhrinay masaladana ay ku timid kitaabkaas aynu nidhina imaam shaafici kitaabkiisa risaalada wuxuu ahaa kitaabkii ugu horreeyey ee masalooyinkan cilmiga la faguray laakiin kadib baa gaar loo soocay sida usuul fiqigaba looga soo saaray risaalada ayaa mustalaxul xadiidka ama cilmul xadiidkana asaaskiisii hore uu halkaa ka imanaya marka halkaasaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala Aan- ardaydii qaar way soo mareen waa xusuusin un bay noqonaysaa laga bilaabo faqrada 998 qoladii hore haysatay imaam shaafici raximah allahu tacaala ayaa waxaa la weydiiyey horta shaashadda in la arka ayaan rajaynaya si fiican u aragtaan soo yaro dhaweeyo imaam shaafici raximah allahu tacaala ayaa waxaa la weydiiyey warka ugu awooda yar ee la xujaysan karo ama daliil noqon karaa muxuu yahay xadiid markii laga soo hadlay waxyaalaha la xujaysan karo xadiidka ugu yar ugu awooda yar ugu darajo hooseeya ee la aqbali karo daliil laga dhigan karo la xujaysan kara muxuu yahay ayaa la weydiiyey imaam shaafici raximah allahu tacaala jawaabtiisi marka waxay ahayd waa warka uu hal qof ka soo wariyo hal qof oo kale kaasina uu kasii wariyo hal qof oo kale kaasina uu kasii wariyo hal qof oo kale ilaa iyo laga gaarayo nebiga sala allahu calayhi wasalam ama cidda ka sokaysa ee warkaasi uu ku dhammaanayo tusaale ahaan hadduu xadiid nebiga sala allahu calayhi wasalam laga soo wariyey uu yahay marka xadiidkaas la kala warinayo qofkaas xadiidka soo deliishanaya laga bilaabo ama tusaale ahaan innaga haddeer waxaynu isticmaalanaa kutubtii xadiidka xadiidkaas hadduu soo gaaray imaamu shaafici raximah allahu tacaala imaamu shaafici waa inuu noo sheego qofkii uu ka maqlay qofkaasina noo sheego qofkii uu ka maqlay kaasina noo sheego qofkii uu ka maqlay ilaa sidaa lagu gaarayo nebiga sala allahu alay wasalam haddii warkan uu yahay war ku dhammaanaya abubakar tusaale ahaan radi allahu canhu ama cumar ama cuthmaan ama cali ama caaisha ama abu hurayra iyagana saasoo kale marka isha warkaas uu ka imanayo ilaa laga gaadho waa inuu hal qof kasii warinayo hal qof oo kale oo aysan kala go'nayn silsiladaas inaynu helno ayaa darajada ugu hooseysa xadiid ee aynu deliishan karno ayuu leeyahay imaamu shaafici raximah allahu tacaala marka xadiidkan uu inoo tilmaamayo kii aynu kusoo qaadayna cashirkii hore ahaa xadiidka hal dariiq lagu soo wariyey ee gariibka ah alfard almutlaq ayuu halkan inoogu tilmaamaya xadiidkii aynu kusoo tilmaanay xadiidkaasa ugu darajo hoose wixii intaa ka hooseeya wax la aqbali karo oo la deliishan karo oo xujo gelaya ma noqonayo marka xadiidkii markuu sidaa yahay oo uu buuxiyey middaa hore oo aynu helnay dadkii kala werinayey shuruudo kala imanaysa shuruudahaas waa inay dadka kala werinaya waa inay shuruudahan buuxiyaan shuruudda laga raba inay buuxiyaan waxaa ka mid a qof kasta oo silsiladaa ku jira waa in diintiisa iyo alla kacabsigiisu ay yihiin wax lagu kalsoon yahay waa inuu yahay qof fiqa ereygaas waa muhim marka xadiidka la joogo waa inuu yahay qof diintiisa iyo alla kacabsigiisa iyo taqwadiisa lagu kalsoon yahay oo ah fiqa taas waa midda kale ah qofkaasi waa inuu qof runsheeg ah yahay bartan yara weyneyni cafwan waa inuu qofkaasi qof runsheeg ah yahay oo run lagu yaqaano hadduu qofkaasi qof been sheegaya yahay warkiisa lama qaadanayo taasina waa midda kale qofkan isagoo qofkii aan been sheegaynin oo cadaalad alla kacabsi iyo iyo diin wanaagsan lagu yaqaano ayaa qof waxaa laga yaabaa warkiiba inuusan fahmin usan sidiisa usoo gudbin karin marka waxa kale aan u baahannahay qofkan waa inuu fahamsan yahay waxa uu sheegayo oo haddii waxa uu maqlay uusan sidii uu u maqlay u sheegaynin
dad saa u sheegin waa inuu macnihii fahmayo, waayo haddii macnihii isbedelo ama ereyadii uu qaar bedelo waxaa laga yaabaa macnihii inuu isbedelo oo wax xalaal ay xaaraam noqdaan ama wax xaaraan ay xalaal noqdaan. marka imaam shaafici wuxuu leeyahay qofku waa inuu fahamsan yahay waxa uu sheegayo, oo waa inuu og yahay ereyada iyo qaabka macnuhu ku bedelmi karo hadduu macno warkii ku sheegayo. hadduu sidiisii u warinayana oo ereyaduu maqlay sidoodii u sheegayana taas iyadu dhibaato ma yeelanayso. waxaa kaloo ku xigta uu leeyahay qofku waa inuu yahay xaafid, wixii uu maqlo qof xifdinayo oon kala ilaaweynin oon kala halmaamayn waa inuu yahay qof wixii qaybna xifdinaya qaybna ilaawaya oon xusuustiisu wanaagsanayn, xadiis lagama qaadan karo. marka qofkaasi xadiidkiisa loo qaato oo warkiisa uu xujo u galo waa in qofkaasi uu leeyahay xifdi oo wixii sidii uu u maqlay uu ugu soo celin karo. ama haddii kale waa inuu meel ku qortay wixii oo uu meeshaas uu ku qortay kitaabka uu ku qortay waa inuu wax yahay mid ilaashan oo ciddii doonta aysan wax iskaga qori karin. culimada waxay lahaayeen kutubo asal u ah oo ay xadiistooda ku qortaan, maadaama marka hore la safri jiro sheekha intaa u tagtid xadiidka uu kuu sheego adna aad qoranaysid kadibna aad ugu celinaysid oo kaa saxayo wixii khaldamay. asalkii aad haysatay marka xadiidkaaga waa kaas oo aad isticmaalaysid. hadduu sheekhaas adigu aad qof dad kale usii dhigaysidna ama ay kaasii warinayaanna haddaadan xifdigaaga ku kalsoonayn kitaabka intaad la soo baxdid ayaad u akhrinaysaa ama aad leedahay halkan ka qorta. marka asalkaas ugu qoran yahay waa inuu ilaashado oon dadka kale wax ku dari karin, waxna ka bedeli karin, wax ka tirtiri karin. taasna waa loo baahan yahay. marka labadaas ama inuu xifdi ahaan uu dusha ka qaybsan yahay ka xifdisan yahay ama inay meel ugu qoran tahay meeshaasina ay u dhowran tahay, labadaasba waa loo baahan yahay. midda kale oo imaam shaafici wuxuu leeyahay dadka kale haddii xadiidkii qofkani warinayay dad kale iyaguna warka sheegaya keligii kuma koobna. xadiidkan marka gariib ma aha, fardi maaha. dadkii kale isla warkan warinayay iyo warkiisu waa inaysan iskhilaafaynin. haddii dadka kale ay si wax u sheegaan isagana wax ka duwan oo si kale uu sheegayo, dadkana xifdigooda iyo fiqanimadooda iyo fahamkooda lagu kalsoon yahay, isaga waxay noqonaysaa isaga in la yidhahdo maxaa kaa bedelay dadka kale, maxaad adigu sidan u leedahay. marka halkaas hadal baa ka imanaya, armu qofkani wixii kale ilaaway, caddayn baa halkaa ka dhalanaysa in warkiisa ay wax ka sii yihiin. marka waa inuusan khilaafin dadkii kale, isbarbardhig marka lagu sameeyo. midda kale lixaad wuxuu leeyahay imaam shaafici waa inuusan ahayn mudallis. qofka mudalliska waxa weeyaan qofuu warka maqlay, warkii uu warinaya waa caadi warkaas, laakiin maadaama qofkii uu la kulmay warar kale uusan qofka toos uga maqlin ayuu wuxuu u sheegayaa sidii inuu toos uga maqlay oo kale. taasna lama ogola. waxaa laga yaabaa tusaale ahaan ardaygii inuu sheekhi u tegey, sheekhii buu xadiisyo kasoo wuu la fadhiistay, waa la ogyahay inuu la kulmay, xadiisyuu kasoo qaatay, wuu ka tegey. haddana wuxuu maqlay qof kaloo ardaydii laga yaaba asxaabtiisa ka mid ahayd sheekha iyaguna ay wadaageen in xadiis ardayga kale uu sheekha ka maqlay uu kan kale maqlo. intuu odhan lahaa hebel, intuu kasii warin lahaa hebelkan kale saaxiibkiya ayuu sheekhii u boodayaa, maadaama ay kulmeenna qofkii aan kala garanayn wuxuu odhan karaa sheekhiisi wayaan uu ka qaatay. laakiin culimmada qaar ayaa dabagal markay sameeyaan ogaan kara qofkani inuusan xadiidkaas laftarkiisa uusan ka maqlin sheekha, sida awgeedna uu sameeyey wax la yidhahdo tadliis, uu ku noqonayo mudallis. waxbuu hoosgelin buu dadka u samaynaya. waa nooc ka mid ah daacad darradii oo dhibaato ku keenaya wariyihii xadiidkiisa lagu diidi karo. marka waa inuusan mudallis noqonin, wax uusan qofkaas ka maqlin waa inuusan ka warinin xitaa hadday kulmeen. arrinta xadiidku ma fududa, qofkaas shuruud adag ayaa loo dhigayaa si xadiidkiisu uu u noqdo wax la aqbali karo oo ah maqbuul. haddiise laakiin uu iska sahlado oo war uusan qofkaas ka maqlin uu u wariyo sidii inuu ka maqlay oo kale, waxaa leeyahay ninkan warkiisa waxbaa kasi ah, laguma kalsoonaan karo. in shuruudo dheeraada isaga dusha laga saari doona hadhow waynu arki doonaa insha allahu tacaala, si qofkaas laysaga ilaaliyo inuu wax khaldo. waxaa kaloo ku jirta uu leeyahy imaam shaafici waa inuusan nebiga sala allahu calayhi wasalam ka warinin war khilaafsan warka hiqaadka kale ay warin. culimadii kale xadiidka waa hiqa, lagu kalsoon yahay xifdigooda, diintooda, alla ka cabsigooda, heerkii ugu darajadaas sare ka jooga cilmiga xadiidka, wixii ay soo wariyeen waa inuusan wax ka duwan sheegaynin. waa inuusan nebiga sal slam xadiidka uu ka warinayaa waa inuusan khilaafsanayn xadiidtii kale culimadii kale ay kasoo wariyeen. culimada kalena waa hiqaat, marka dad lagu kalsoon yahay oo la yaqaano
heerkooda weeyaan waa inuusan khilaafin. intaas markuu imaam shaafici shuruuddaas toddobadaa inoo sheegay ayaa wuxuu leeyahay haddana wuxuu ku darayaa qofka qofka xadiidka saas darajada koobaad jooga qofkii uu ka wariyeyna saasoo kale laga doonaya, kaasi kii uu kasii wariyeyna saasoo kale laga doonaya ilaa aynu ka gaarayno nabiga sala allahu alay wasallam. markaa silsiladii qof kasta oo silsiladaa ku jira shuruudahan baynu u egeynaa, mid mid baynu u dabagelaynaa. waxaan leenahay qof walba shuruuddii ma buuxiyey, waayo sheekhu inoomu sheegin alxaafid ibn xajar litawaquf alistidlaali biha can axwaali ruwaatiha, soo inamu odhanin ka qofka xadiidkan la aqbalaya maqbuulka iyo marduudka ah markaynu aqbalayno waxay ku xidhan tahay in aan eegno oo aan baadhno dadka soo wariya xaaladooda. marka dadka soo wariya xaaladooda waxaan leenahay mid walba shuruuddan baynu daba dhigayna, mid walba waxaan leenahay shuruuddan ma ka soo baxay mise kama soo bixin. kii ka soo baxay baynu leenahay warkiisu waa sax, kii aan ka soo bixinna waxaan leenahay warkiisu waa marduud, ma aha maqbuul. waa inuu xidhiidhsan yahay, taasna waynu u tegi doonaa iyadan. sidaa awgeed marka waxaan leenahay waxaa loo baahan yahay silsilad xidhiidhsan oo dadka kala warinaya ah. silsiladaasna waxaynu erey bixinteeda waxa weyaan sanad ama isnaad. silsiladda xadiidka lagu warinayo ee ah hebel baan ka maqlay, hebelna wuxuu kasii maqlay hebel, hebelna wuxuu kasii maqlay hebel, ilaa iyo laga gaarayo meesha uu warku ku dhammaado oo ama nabiga sala allahu alay wasalam ah ama saxaabi ah ama taabici ama cid kale ah. silsiladaas ayaa waxaan leenahay magaceedu waa sanad ama isnaad. waana waxyaalaha ay cilmiga xadiidka asaaska iyo gundhiga u ah. oo bilowgii cashirka waxaan ka soo hadalnay dadkii markii qaar bilaabeen inay been sheegaan ayaa culimadii waxay yidhaahdeen sammuu lana rijaalakum. arrintan isnaadka ayay keeneen, waxay leeyihin dadkan aad ka wariseen warkan ka maqasheen noo sheega magacyadooda yay ahaayeen. marka taas waxay noqonaysaa in la taxo hebel baan ka maqlay, hebelna hebel buu kasii maqlay, hebelna hebel kaluu kasii maqlay, saas inuu warkii uu ku taxmo. waxaa la yidhaahdaa lowla alisnaad, haddii uusan isnaadku jiri lahayn laqaala man shaaa maa shaa, qof walba wuxuu doon iska odhan lahaa. haddii aan laysdabagelaynin oo aan isnaad iyo sanad layska rabin qof walba wuxuu doono ayuu sheegi lahaa. marka tana waxay noqotay qayb ka mid ah diintii oo lagu ilaalinayo diintii iyo xadiidka nebiga sala allahu alay wasalam in aan lagu darin wax aan jirin, beentii laga ilaaliyo ayay noqotay. marka isnaadku waa arrin aada muhiim u ah oo u baahan in la barto iyo in la fahmoba, gaar ahaan qofka xiiseynaya oo danaynaya inuu sunnadii nebiga sal salam iyo xadiidka u barto. marka wuxuu leeyahay imaam shaafici raximah allahu tacaala qof ayaa dabagal loogu samaynaya. qofna ma dhahayno maadaama tusaale ahaan haddii markii aynu gaadhno xadiidkii oo tirinayo shaafici wuxuu ka wariyey maalik wuxuu ka wariyey naafic, ma odhanayno maadaama imaam maalik uu yahay heerka darajadaas sare uu ka joogo cilmiga xadiidka. oo imaam shaafici wuxuu ku tilmaamay najmu sunan, waa xidigii xadiidyada. dadkan hebel waa xidig ama waa star iyo wixii lamida iyo bixinta cusub barya waa goat, greatest of all time. imaam maalik imaam shaafici markuu tilmaamay wuxuu yidhahdaa najmu sunan, sunnada nebiga sala allahu alay wasalam iyo xadiidka xidigoodii meesha ugu sareysa weeyaan uu ku ammaanay, waana sheekhiisii. marka laakiin ma dhahayno maadaama imaam maalik uu qofkaas kale ka wariyey oo isagu ku kalsoon yahay imaam maalik baan u daynaynaaye naga daayo ma dabagelayno dadka kale. lama samaynayo sidaas. marka waa in qof kasta oo xadiidka ku jira dabagal lagu sameeyo ilaa la ogaado qofkaas inuu yahay qof lagu kalsoon yahay ama aan lagu kalsoonayn. marka culimmadii dabagalkaas lagu sameeyey ee baaritaankaas soo maray iyagu baaritaan dama uma baahna, waaba lahaya darajadoodii wayso. marka laakiin asalkii markii la diiwaan gelinayey shuruuddaasaa taallay. kabacdi uun baa hadda waxaa laleeyahay xadiidkan waxaa kala warinaya imaam axmed baa wuxuu ka warinaya shaaficina wuxuu ka warinaya maalik. sidaas imaamyadii waaweynaa markay saa isu dabagalaan idanka baaritaan noogama baahna, mid walba waan ognahay inuu yahay qof lagu kalsoon yahay oo ah fiqa oo warkiisa la qaadanayo. marka dabagalkaasina wuxuu ka imanaya sida aynu sheegnay meeshuu alxaafid ibn xajar lahaa maqbuul iyo marduud waxay ku xidhan tahay, daliishigoodu wuxuu ku xidhan yahay baxth axwaali ruwaatiha, dadka soo wariyey xaaladooda in aynu baadhno. marka xaaladdaasna waxaynu ku ogaanaynaa inaynu isnaadkii ama sanadkii aynu dabagalno. mid kastaana waa inuu shuruuddaa buuxiyo, marka midna kama tegano. shuruuddaas iyo buuxintooda markii aan dhammaystirno ayaa waxay noo soo baxaysaa warkaasi ma maqbuul ba ama warkaasi ma marduud ba. labadaa mid un baynu gelaynaa, ama maqbuul buu noqonaya ama warkaasi ama marduud
ayuu noqonayaa intaas. haddaan kaga tagno intii imaam shaafici raximah llahu tacaala oo uu inoo tilmaamay, halkan waxay inooga soo baxaysa isnaadka haddaynu yaro eegno marka silsiladda. waxaan leenahay isnaadkii hadda xadiidkan, isnaadkan lagu wariyey waa xadiidka inama alacmaalu binniyaat. isnaadka markaynu eegeyno waxaad ka soo qaadaa qofka xadiidka diiwaan gelinaya, ama bukhaari ha ahaado ama muslim ha ahaado ama imaam axmed ha ahaado ama mid kale ha ahaado, waxaan dhigaynaa halka hoose. fahamka marka ereybixinada inoo iman doona markaynu ka hadalno isnaad sare ama isnaad hoos u daadegay ama isnaad caali ah ama naazil ah, si aan ereyada u fahamno waa inaan sidan suuraysano oo ah xadiidkan cidda diiwaan gelinaysa ama markaa werinaysa hoos baan dhigaynaa, korna waxaan dhigaynaa nebiga sala allahu caleyh wasalam. sidaas marka macnaya ereyadaas aynu u fahmaynaa macnahooda iyo siday ku socdaan. waxaan leenahay silsiladan isku xidhiidhsan ee ka bilaabmaysa nebiga sala allahu calayhi wasalam, xadiidkii warka uu ka yimid, andhaho bilowgu wuxuu noqonaya bukhaari, cafwan. bilowgu marka halka hoosuu noqonaya, dhammaadkuna waa meesha uu warkaasi ka yimid, waa nebiga sala allahu calayh wasalam tusaalahan. ama wuxuu noqon karaa war cumar radiallahu canhu laga soo wariyey, waxaan leenahay dhammaadku wuxuu ku dhammaanaya saxaabiga, ama wuxuu ku dhammaan karaa taabiciga iyo wixii lamida. waxaan leenahay isnaadka dhammaadkiisu waa dhankan kore, bilowgiisuna waa hoostii. ka bukhaari markuu werinayo wuxuu leeyahay xumaydi ba wuxuu noo sheegay inuu sufyaan u sheegay, sufyaanna waxaa u sheegay yaxye, yaxyena maxamed, maxamedna calqama, calqamana cumar buu ka maqlay, cumarna nebiga sala allahu caleyh wasalam oo mimbarka saaran oo khudbayni ayuu maqlay oo leh inama alacmaalu binniyaati wa inama likulli imri'in maa nawaa. xadiidkii saxiixulbukhaari uu ku bilaabmanayo, arbaciin nawowigana uu ku bilaabmanayo. marka xadiidkaas silsilada lagu soo wariyey ayaa waxay tahay isnaadkii ama sanadkii lagu soo wariyey. inama alacmaalu binniyaatkaas weedhaas xadiidka aynu xadiidka u naqaano, iyada waxaan leenahay waxaa la yidhahdaa waa matni. saasay labada erey ku kala duwan. marka erey weedhii xadiidka ama ereyadii xadiidka ahaa iyo warkii lasoo wariyey waa matnigii, laakiin silsiladii dadkii soo kala wariye lagu gaadhayay ee lahaa samuu lana rijaalakum, dadka ka soo warisa noo sheega, iyadu waa isnaadkii. halka uu ku dhammaado ayaa korkii ah, halka uu ka bilowdana waa hoostii weyaan. saas aynu u kala qaadana si aynu u fahamno. marka intaas guud markaynu soo marno haddaba aynu ku soo noqonno cashirkeenni maanta iyo kitaabkeenni nukhbatulfikirka inagoo fahamkaas guud ka haysana. wuxuu leeyahay wakhabaru laaxaadi, warka aaxaadka ah binaqli cadlin, warkaas oo uu soo tabinayo, waxaa soo guurinaya oo inoo sheegaya qof cadli ah. cadli muxuu yahay waan ka hadli doonaa. qofka cadliga ah oo taami dabd, qofkaas xifdigiisu uu dhammaystiran yahay. qof xifdigiisu waxna ilaawaya waxna xifdinaya oo xifdigiisu uusan dhammaystirnayn, uusan buuxin ma aha. qof wuxuu uu maqlo siduu u maqlay usoo warinaya, qofkaas xifdigiisu dhammaystiran yahay. muttasil sanad, sanadkii silsiladii lagu soo wariyeyna way xidhiidhsanta. marka shuruuddii khabarkan aaxaadka ee laga helay arrimahan: kow, qofka soo warinaya waa cadli. labo, qofka cadliga xifdigiisu waa xifdi dhammaystiran. silsilada lagu soo warinaya dadkii soo kala warinayeyna way xidhiidhsan tahay, waa muttasil sanad. warkaa lasoo warinayana wax cilada ma laha. silsiladaas iyo isnaadka lagu soo warinayo wax cilad ah oo ku jirta ma jirto. غayr mucallal, cilo ma laha. walaa shaad, shaadna ma aha. shaad waxay tahayna waynu isla eegi doonaa. shantaas shardi wixii laga helo, shan shardi buuxiyey ayaa wuxuu noqonayaa asaxiixu lidaatihi. iskii ayuu saxiix u yahay xadiidkaas. iskii buu saxiix u yahay macnaheedu waxa weeyaan wax kale oo taageera ama kaba ama awood dheeraada siiya uma baahna. waa xadiid isku filan oan taageero u baahnayn. iskii ayuu wuxuu u yahay saxiix. waynu arki doonaa sababta iskii uu saxiix u yahay loo leeyahay, waayo xadiisyo kale waxaa jira saxiix noqon kara laakiin taageero ku noqon kara. iyaga waynu u tegi doonaa haddii lahaydno. wuxuu leeyahay xadiidka saxiixa ah, xadiidka maqbuulka ah ee la qaadanayo ee la aqbalayo, shantaa shardi waa inuu buuxiyo. shantan shardi haddaynu aagno waa intii imaam shaafici noo soo sheega uun, waxba laguma darin.
waa kow, qofku waa inuu cadli yahay, qof caadil ah oo diintiisa lagu kalsoon yahay, waa inuu wargal yahay qofka caadilka ah. marka qofka caadilka waxaa la yidhaahdaa waa laba wax waa in laga helo: taqwada alle kacabsi waa in laga helo, waa mid. sidoo kale waa in laga helo waxa la yidhahda muru'a, waa qof dadnimo leh, oo waxyaalaha dadka noociisa ay ka xishoodaan ka xishooda, oo anshax wanaagsan, oo isdowra inuu yahay. tusaale, haddii meesha aad joogtay ay ceeb ka tahay qof weyn inuu dadka hortooda ama isagoo jidka maraya banaanka maraya uu wax ku cuno, qofkay sidaas sameeya dadka hortooda aan danaynin, meelay ceeb ka tahay, isagoo suuqa maraya wax iska cunaya, qofkaasoo kale waxaa leeyahay muru'a ma laha. sidaa awgeed qofka saasoo kale ah culimmadu xadiidka kama aysan qaadan jirin. marka qofka waa inuu muru'adiisa ilaalinayo. qof aan isagu shakhsiyan isdhowraynin oo aan is ilaalinaynin, oo waxyaalaha bulshadiisa ceebta ka ah ama laga dhowrsado aan iska dhowraynin, kuma aamini karno xadiidka nebiga sala alla alay wasalam inuu sidiisa inoogu sheego. sida awgeed qofka waxaa leeyahay naga ilaaliya. waa mid, waa qof dhowrsoon, anshax wanaagsan, alla ka cabsi leh waa inuu yahay. qofka intaa laga helo ayaa wuxuu noqonaya qof cadli ah. sidoo kale qofkaas waa inuu yahay taami dabt, xifdigiisu qof uu dhammaystiran yahay, qof aan wagash wagash ahayn, xifdigiisu kala dhiman yahay, qaybna xusuusanaya qaybna ilaawaya. wixii uu xusuusta xitaa bilowgii iyo dhammaadkii iyo dhexdii isku dhex qasaya oo aan kala habeyn karin hadduu yahay, qofkaasna warkiisa lama qaadanayo. waa inuu mutasil sanad yahay, isnaadka xadiidka lagu soo wariyey waa inuu xiriirsan yahay. silsiladaas hadduu qof ka maqan yahay, warkaas lama qaadanayo. waa in qof kasta oo meesha ku jiray la hayo. غير معلل warka la soo wariyey waa inuusan lahayn cillad dhibaato u keenaysa, waa inuusan meel uun wax bukaan ah iyo wax dhibaato u keenaysan ku jira. cillooyinka arkayda waxaa ka mid ah haddii labadii qof ay kulmeen laakiin warkan aysan kala qaadanin, sidii waa naga niri waa inuusan mudallis ahaanin. haddii qofka warinaya midkood mudallisnimo lagu yaqaano, halkaas cillad bay noqonaysaa. ka cilladaas waxyaalahan kaga saari karna waxaa ka mid ah inaan warkii shuruud dheeraad ah aynu saarno wariyahaas, shuruud dheeraad waa inaad kasoo baxdid, haddii kale warkaaga lama qaadanay. marka waa inuusan cillad lahayn, sida mudalisnimo inaan lagu haynin qofkii warinayay meesha ku jiray. walaa shaad, so imaam shaafici mu oranin waxa uu nebiga sala allahu alay wasalam ka warinayo ay dadka kale la wariyeen waa inuusan wax badan, waa inuusan khilaafin waxa ay wariyeen. haddii waxay sheegeen wax ka duwan uu sheego qofkani, waxaa leeyahay 5 qof baa xadiidkan soo warisay, 4 baa dhinaca isu raacday, isagu wax kaluu sheegay. marka qofkaas sidee warkiisa kalsoonidii baa xogay dhaawacmaysa, xitaa hadduu yahay imaam weyn oo thiqa ah, laakiin maadaama uu khilaafay 4 kale oo la darajo ah, waxaa leeyahay sidee wax u jiraan. su-aal baa halkaas soo galaysa. marka waa in uusan ahaanin shaad, waa inuusan ahaanin. xadiidka intaan ka helno waxaan leenahay xadiidkaasi waa saxiixun, wa saxiixun lidaatihi, sidiisa ayuu saxiix ku yahay. marka intii uman ku celin baa halkan kusoo celinay 5tii shardi xadiidka saxiixa. 5tan wax waa in laga helo: waa inuu wariyuhu cadli yahay, waa in xifdigiisu buuxo uu dhammaystiran yahay, jidku waa inuu xiriirsan yahay, waa inuusan cillad lahayn, waana inuusan shaad ahayn. marka 5taa shardi wixii laga helo, xadiidkaas saxiixnimo maqbuul baan leenahay weyaan, waa la qaadanaya waana la aqbalaya. intaas haddii wax ka dhinmaan ay kala dhantaalmaan, markaas ayay su-aalo kale imanayaan. qofka cadli marka lagu sheegayo, cadlinimadaasi waxaa ka imanaysaa taqwada iyo alla ka cabsiga qofkaas, iyo muru'adiisa, dadnimadiisa siduu u ilaashado, waxyaalaha dadka heerkiisa ay ka xishoodaan inuu ka xishoodo, iyo wixii lamid a. sida tusaale ahaan hadda culimada waxaa lagu yaqaanaa dhar iyo qaabay u labistaan. qof aan qaabkaas u labisnayn oo qaabkii ciyaalo suuqa u labisan, qofkaas muru'adiisa waxba u dhimaysa, iyadoo laga yaabo dharka uu xidhan yahay inuusan xaaraan ahayn, dhar dadku xidhan karaan uu yahay, haddana ma aha wax isaga ku habboon oo loo ogol yahay inuu xidho dadka isaga la midka oo kale. waa qaabdarray ku tahay. marka inuu qaabdarradaasoo kale hadduu ka sariigan waayo, iska dhowri waayo, ka xishoon waayo, macnaha qofka muru'adiisii wuxuu la yimid wax khawaarimul muru'a, wax dadnimadiisii iyo sharaftiisii wax u dhimaysa ayuu la yimid. maadaama uu waxaasoo kale ku dhiiran karo, xadiidkiisa ma qaadanayna inagu ma aaminayna inuu nebiga sal slam run ka sheegayo in kale. taas halkaasay ka imaanaysaa su-aashaas cadlinimada iyo muru'ada qofka. cadlinimada sidoo kale waxay ku timaadaa fiqiga marka la joogo, qofkaasi markhaati gal ma yahay. qof
markhaati ma loo aqbali karaa qofkaas oo maxkamad intuu soo istaago markhaatiga markuu galo marag noqdo ma la aqbalaya mise lama aqbalayo iyaduna waa cadlinimo marka labadaas xadiidkana way ku imanaysaa fiqigii iyo markhaatigiina way ku imanaysaa sidoo kale qofkaas xifdigiisu waa inuu dhamaystiran yahay. xifdiga waxaan soo nidhi sida imaam shaafici inoo sheegay bilowgii waa labo mid inuu xifdisan yahay inuu qeybsan yahay maskaxiyan ahaan uu u xifdiyey wixii oo uusan u baahnaynba inuu meel ka akhriyo sida qur-aanka u xifdino oo kale ama inay meel ugu qoran tahay oo markii la weydiiyo uu meeshii kitaabkiisi intuu la soo baxo uusan iyadoon waxba laga bedelin cid kalena aysan kitaabkii ka farafaraynin wax ka khaldin waa inuu u sheegi karo dadki marka labadaas mid ayuu soo gelaya xifdi maskax ahaan ah iyo xifdi kitaab qoraal ahaan iyo kitaab ahaan jidkiisa isnaadka iyo sanadka lagu soo wariyeyna waa inuu xiriirsan yahay oo uusan kala go'nayn haddii uu kala go'naado waa tuuris warkaasi wuxuu noqonayaa daciifkiibuu soo gelaya warkii marduudka ah ee aan la aqbalaynin ciladu marka cilad marka la leeyahay cilada waa erebixin gaar ah cilada waana waxay ka mid tahay waxyaalaha cilmiga xadiidka marka la joogo runtii ay culimmadu yidhaahdaan aad bay u adag tahay dadku in ay fahmaan ama culimmada in yar oo ka mid ah unba heer takhasus la dhihi karo takhasus sare ah ka gaadhay culimmadaasaa loola noqdaa marka iyagu ay arrintaas ay ka hadlaan kuwaas warkooda wuxuu noqonayaa war la qaato oo loo soo joogsado ma aha arrin igu soo orod iyo si fudud looga dabaalan karo maaha laakiin waa arrin aad u xeel dheer oo qof wakti badan xadiidka kusoo dhex jiray muxadisiinta kala yaqaana dadka sanadka ku jira kala garanaya sida isula xiriiraan garanaya wararka iyo kala duwanaanta marka qof aqoontiisu aqoonta xadiidka aad ugu xeel dheer ayuunbaa gaara darajooyinkan inuu cilooyinka xadiidka saas usoo kala guri karo oo kala xallin karo waan aad bay u qarsoon tahay baa la yidhaahdaa waana waxyaalaha ugu adag fahamkooda marka culimmada in kooban ayaa aad ugu takhasusay sida kamid imaam bukhaari oo imaamyada xadiidka raaca ugu horeeya darajada sare darasooyinka sare kaga jira علي بن المديني إمام أحمد إمام الترمذي kitaabkiisa uu ka qoray oo kaga hadlay cilalka iyo wixii lamid a marka waxaan leenahay ciladu waa sabab qarsoon oo waxyeelaynaysa xadiidkaas marka waxay u baahan tahay in lasoo saaro haddii aysan ku jirin alxamdulillah haddaysan cilad meeshii aysan soo golin inuusan cilad kasta laguma diidayo ciladaas waa inay dhaawac gaarsiinayso xadiidkaas haddaysan dhaawac gaarsiinayn waxaan leenahay xadiidku waa la qaadanaya dhibaato ma laha laakiin haddii ciladu tahay mid wax dhaawacaysa waxaan leenahay ciladaas waynu u tegi doonaa markaynu daciifka ka hadalno ayaynu tusaalayaal eegi doonaa insha allahu tacaala shardigii kale ugu dambeeya wuxuu ahaa waa inuusan ahaanin shaad haddii aynu hayno xadiidkii 5 qof baa werinaysa 6 qof baa werinaysa cafwan 6dii qof 5 ka mida markaynu eegno wararkoodii aad bay isugu dhadhow yihiin ereye isu dhadhow macna ahaantii waa xadiid aynu fahmi karno meel u wada socda laakiin waxaa jira midkan meel gaara keligii jooga goonidaaq keligii buu socdaa warkii ay intani soo wariyeen ayuu isagu wax ka duwan ayuu soo warinaya marka waxaan leenahay kan warkiisu waa shaadnimo ayaynu ku xukumaynaa waxaan leenahay warkiisa isaga lama qaadanayo kuwana la qaadanaya laakiin intan oo dhan mid walba waa qof hiqa ah oo lagu kalsoon yahay taas waa muhim waa inaan ogaano qofkani macnaheedu maaha waa qof aan warkiisa la qaadanaynin asal ahaan waa qof warkiisa la qaato oo hiqa ah laakiin 5tan kale ay la darajada ah ama ka darajo sarreeya ayuu khilaafay maadaama uu khilaafay waxaa leeyahay intan oo qof warka ay isku raaceen ay wada sheegeen waxaan aadka ugu duwan aad la timid waxbaa ka siya wadariya waaxid yamaa waalantii soomaalida oran jirtay weeyaan kaas waxaa leeyahay kan waxbaa ku jira waana layska eego sababta uu wax gaara u soo wariyey aysan dadkan la soo warinin marka shaadinimadu waa gooni daaqnimadaas weeyaan waa inuusan xadiidka saxiixa uusan ahaanin xadiid shaad ah taasna ama war shaad ah waa inuusan meeshaas ku jirin intaa markan helno marka cadlinimadii qofka alla kacabsigiisii iyo dadnimadiisii iyo isdhowrkiisii dadku isku mid kama aha way kala duwanaanayaan qofbaa alla kacabsigiisu dadka kale uu ka sarreeya qaar buu ka hooseeya qaar baa xifdigiisu dadka kale ka fiican yahay qaar buu ka hooseeya marka shuruuddaas ciladii waxaa laga yaabaa inay
cilo meesha ku jirto laakiin cilad weyn maaha, waa cilad yar oo xadiidkii aan lagu diidi karin. ama waxaa laga yaaba ciladii inay tahay cilad dhaawacaysa xadiidkii warkii oo shaki gelinaysa sugnaantiisii inuu nebiga sal slam sidan yidhi. waxaa dhici karta sanadkii wuu toosan yahay laakiin wuuna xiriirsan yahay waxbaa, laakiin su-aal baa meel kaga jirta. marka waxaan leenahay darajooyinkan ma intii shardi markuu xadiidka saxiixa a buuxiyo, haddana isla shuruuddii iyagoo buuxiyey ayay qaabkii u kala buuxiyeen ku kala duwanaan karaan. marka taas waxaa ka imanaysa darajooyinkii saxiixu inay kala sarreeyaan. waxaan leenahay sida ay shardiyada u buuxiyaan ayaa saxiixa darajooyinkiisuna ay u kala sarreynayaan, maadaama xifdigii iyo cadlinimadii iyo wixii la mid ahaa ay dadku ku kala duwanaanayaan, qof walba uusan isku darajo ka haysanin. maadaama aanu sanadkii uu xiriirsan yahay sax, laakiin hebel iyo hebel xifdigoodu boqolkiiba boqol isku mid ma noqon karo, ama hebel iyo hebel cadlinimadoodu boqolkiiba boqol isku mid ma noqon karto, way kala duwanaanayaan, bani aadan baa leeyahay. marka waa in taas iyadana iyadoo la eegayo ay kala darajooyin noqoneen. sida awgeed ayaa culimada qaar waxay keeneen wax la yidhaahdo asaxu lasaniid. asaniiddii xadiidka marka sanad markaan wadar ka dhigno ama jamca ka dhigno waxaan leenahay asaniid. sanad waa hal dariiq, dariiqyadii badnaa, ama haddaan ereyga sanad jamcino waxaan leenahay asaniid. marka asaxu lasaniid waxay culimada xadiidku ay ka hadlaan, qaarba ay si u tilmaameen, laakiin lama odhan karo waxaa jira wax go-an, sanad go-an si guud caadi ahaantiisa culimmadu iskuma raacsan in la odhan karo kaasa ugu saxiixsan. laakiin culimo waxaa jira qaarkood tilmaamay. anu u tusaale ahaan u qaadano si aan u ogaano darajooyinkooda. waxaan leenahay darajada koowaad tusaale ahaan imaam malik wuxuu markuu ka wariyo naafic, naaficna uu ka wariyo ibnu cumar, cabdillahi ibnu cumar radi allahu canhu, sanadkaas waxaa la yidhahda waa sanad aad u darajadiisu aad u sarreyso, oo culimmada qaar ay ku tilmaamaan inuu yahay asaxu lasaniid. sanadyada marka la eego oo ugu saxiixsan. marka kitaabka risaaladan kusoo aragnay marar badan, imaamu shaafici ule akhbaranaa malik annaafic can ibni cumar, xadiiska saa ku warinaya. marka sanadkaas xadiiskiisu aad buu xadiidkii lagu soo wariyo xadiisyada kala dhaafay oo aad u sarreeya weeyaan. taas waa mid. waxaa kaloo isna jira zuhri, imaamu zuhri can saalim can ibni cumar radi allahu canhu. marka labadaba waxaa laga warinaya cabdillahi ibni cumar, halkaasay isugu tegayaan. darajada xigta waxay leeyihiin waxaa ka mid a tusaale ahaan xamaad ibnu salama can thaabit ibnu aslam can anas ibnu malik. darajada kusii xigta aan dhihi karnaa darajada saddexaad bay noqon kartaa. waxaan leenahay calaa ibni cabdiraxmaan oo ka warinaya aabihii cabdiraxmaan can abu hurayra. saasuu kala warin. marka waa tusaalayaal ka mid ah asaaniid la yiraahdo way aad bay saxiixnimadooda u sarreysaa kuwa kale marka loo eego. marka xadiisyadii saas lagu soo kala warinayay darajooyin kala duwan ayay yeelanayaan. sidaa awgeed ayaa xaafidku waxa uu leeyahay marka uu tilmaamayo isagoo darajooyinkan ka tilmaamaya watatafaawatu rutabuhu. xadiidka saxiix lidaatihi, xadiidkii saxiix ahaa ee shuruuddii buuxiyey, darajooyinkiisa iyo heerarkiisa way kala duwanaanayaan. darajooyin kala tagsan oo kala sarreeya ayuu yeelanaya. sababtuna maxay tahay? bitafaawuti hadihi alawsaaf. shantan tilmaamood, shantan shardi hadba siduu u buuxiyo ayuu ku kala duwanaanayaan, ay ku kala heer darajo noqonayaan. wa min thama sidaa awgeed, sidaa darteed qudima saxiixu lbukhaari. saxiixu lbukhaari waxa uu darajada u joogo oo loo yiraahdo qur-aanka kadib kutubta aynu haysano waa ka ugu saxiixsan. sababta loo yirahdo waxa weeyaan kuwa kutubta kale marka loo eego shuruudan sida ay xadiisyadiis u buuxiyeen guud ahaan, waa wadartii baa laga hadlaya, xadiis lagama hadlaya. wadarta guud marka la eego waxaa laleeyahay saxiixu lbukhaari kutubta kale marka loo eego wuu ka darajo sarreeyaa kutubta kale oo dhan, waayo qaabka uu shuruudan u buuxiyeyba wuxuu yahay darajada ugu sarreysa. waa mid. kabacdi maxaa ku xiga? uma muslimun, saxiixu muslim ayaa ku xiga darajada labaad. uma shartuhumaa, kadibna waxaa ku xiga shardigooda. darajada koobaad waxaa horeeya saxiixu lbukhaari, muslim, kadibna shardigooda. laakiin labadanba saxiixu lbukhaari keligii waxaa ka horeeya wixii ah muttafaqun caleyh. bukhaari iyo muslim waxa isku raaceen muttafaqun caleyh la yiraahdo, xadiidkaas ayaa ugu darajo sarreeya xadiisyada. waxaan leenahay saxiixa darajooyinkiisa markaan eegeyno, xadiisyada saxiixa darajooyinkooda markaan eegeyno,
darajada koobaad waa wixii ay bukhaari iyo muslim ay labaduba soo wariyeen. taasaa kow ah. kabacdina waxaa soo gelaya wixii uu bukhaari keligii u soo wariyey. taasina waa labo. kadibna waxaa ku xiga oo darajada saddexaada wixii uu muslim keligii soo wariyey. kabacdina waxaa afraad ah maa kaana calaa shardihima, xadiid aysan iyagu soo warinin laakiin sheekh kale. shardiga waxaa looga jeedaa dadkii ay ka soo wariyeen. xadiidkii ay bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen, isla dadkii ay ka soo wariyeen, hadduu tusaale ahaan sheekh kale abu daawuud oo kale hadduu kusoo wariyo xadiid ka soo wariyo isla dadkii bukhaari iyo muslim ay ka wariyeen, ama tusaale ahaan ibnu xibbaan uu ka soo wariyo, ama xaakim uu ka soo wariyo, ama sheekh kale uu ka soo wariyo tusaale ahaan, sidii dariiqii ay xadiidka ku soo wariyeen haddii cid kale ay ku soo wariso, waxaan leenahay shardigii bukhaari iyo muslim wayaan. waayo qofka dadkan laga soo wariyey waa isla dadkii, waa isla sanadkii uu bukhaari iyo muslim ay isticmaalayeen ayaa la maray xadiidkan laga soo wariyey. sidaa awgeed xadiidkaasa ku darajo xiga. kaasna waxaa ku sii xiga, wuxuu joogaa heerkii muttafaqu calayha, laakiin cid kaleu ka yimid, bukhaari iyo muslim kamu imanin. wixii uu bukhaari keligii wariyey, kabacdina wixii bukhaari shardigiisa lagu wariyey. marka sanad ama dariiq uu bukhaari xadiid ku wariyey haddii sheekh kale ku wariyo, waxaa leeyahay xadiidkaasi waa saxiix calaa shardi bukhaari. haddii uu yahay sanad uu ku wariyey muslimna, waxaa leeyahay xadiidkaasi waa saxiix calaa shardi muslim, shardigiisa muslim buu ku yahay. marka kaasina waa darajada lixaad. darajada toddobaad waxa weeyaan maa lam yakun calaa shardihima wasaxaxahu lculamaa. waxaan dariiqoodii loo soo maray, shardigoodii maaha, sanadkoodiina maaha, laakiin culimada kalea soo warisay, iyagana saxiix darajadiisa saxiixnimada siiyey. markay dadkii soo wariyey la baaray, dabagalkii lagu sameeyey, shuruudii wuu buuxiyey, laakiin ma aha dariiqii iyo shardigii bukhaari iyo muslim toona, ee waa dariiq kale oo ka duwan. marka intaas oo darajo ayuu yeelanayaa xadiidkii saxiixa ahaa marka la kala saarayo. haddaan hoos anu ugu tago waa kuwan. waxaan nidhi waxa ugu horeeya wuxuu noqonayaa wixii muttafaqun calayhi ah, kadibna xadiidka uu bukhaari keligiis wariyey, xadiidka muslim keligiis uu wariyey ayaa saddexaad ah. kabacdina wixii isla jidkii ay ku soo wariyeen muttafaqun calayhi, wixii lagu soo wariyey isla dariiqaas xadiidkii sheekh kale uu ku soo wariyo ayaa darajada afraad ah. waayo muttafaqun calayhi xadiidkaas maadaama sanadkaas la aqbalay uu saxiix yahay, cid kastoo sanadkaas xadiid ku warisa xadiidkooduna saasuu la shardi noqonaya. sidoo kale waxaa ku xiga shardiga wixii lagu soo wariyo, heerka ku xiga waa xadiidka lagu wariyo shardiga bukhaari keligii, wuxuu u dhigmaa kan. kadibna wixii shardiga muslim keliya lagu soo wariyey, kadibna xadiidkii culimada kale ay diiwaan geliyeen, shardiga bukhaari iyo muslimna aan lagu soo warinin, sanad kale iyo dariiq kale lagu soo wariyey. toddobadaas heer ayaan u kala qaybin karnaa darajooyinka xadiidka saxiixa ah. marka sababta ay bukhaari iyo muslim culimada kale iyo darajooyinkooda ay uga horeeyaan ayaa waxaa ka mid a qaabka ay xadiidka ay kusoo warinayaan. bukhaari tusaale ahaan shuruudi waxyaalaha uu sameeye waxaa ka mid ah in dadka xadiidka saxiixiisa, kitaabka saxiixu albukhaari, dadka wax kaga soo warinayo, shardi wuxuu ka dhigay waa in uu hayo caddayn ah inay labadan qof kulmeen. labada qof madiinay wada joogeen, iguma filna uu leeyahy. labadan qof waa inay kulmeen, waa inaan hayo caddayn inay kulmeen. haddii aan caddaynta hayo, waa xadiidka saxiixan ku daraya. shuruudda uu u dejiyey xadiisyada kitaabka saxiixu albukhaari uu ku qorayo way ka adag yihiin shuruudda saxiixu muslim. imaamu muslim shardigan ma laha, sida awgeed buu ka darajo hooseeyaa saxiixu albukhaariga. midda kale imaam bukhaari waa macalinkii, waa sheekhi imaam muslim. culimada qaar waxay bukhaari la-aantii muslimba lama arkinba, muslimba waxba muu noqdeenba haddii bukhaari meesha joogin. muslim waa ardaygii bukhaari, cilmiga xadiidka ka bartay, isaguuna ku tiirsan yahay oo macalin u ahaa. sidaa awgeed ayuu ka darajo hooseeya. bukhaarina wuu ka shuruud adag yahay muslim. sidoo kale waxaa jirta marka saxiixu bukhaari isagoo culimada isku raacsan yihiin inuu
xadiisyada ku jira ay saxiix yihiin, culimmadu isku raacsan yihiin xadiisyada muslim ku jira inay saxiix yihiin, haddana waxaa jira xadiisyo culimmada qaar ay ka daba tageen ay hadal ka keeneen. culimada hadalka keenay macnaheedu ma aha xadiidka in la leeyahay waa daciif, laakiin hal sheekh culimada kale uu ku khilaafi karaa, hadalna wuu ka keeni karaa, wax dhibaata ma laha, laakiin dhinacii loo bata ayaa la qaadanaya. marka la eego bukhaari iyo muslim waxyaalaha lagu qabsaday keebaa badan, waxa muslim lagu qabsaday ayaa ka badan inta bukhaari lagu qabsaday. sidaa awgeed waxaan leenahay bukhaari ayaa ka awood badan, ama saxiix bukhaari ayaa ka saxiixsan saxiix muslim. imka sidaas ayuu u hormariyey saxiix muslim oo bukhaari wuxuu leeyahay wamin thama qudima saxiixu lbukhaari. saxiix bukhaari sababta loogu hormariyey waxa weeyaan shuruuddiisa iyo qaabka uu u buuxiyey shuruuddaas ay xadiisyadiisa uga soo baxeen ayaa guud ahaan ka darajo saraysa kutubta kale oo dhan. kadibna waxaa ku xiga muslim, kadibna waxaa ku xiga wixii shardigooda lagu soo wariyey labadooda, wixii dariiqooda lagu soo wariyey, kadibna kuwii kale ayaa kusii xiga. intaas waa intaas xadiidkii saxiixa ahaa iyo shuruuddiisii iyo sidii uu u kala darajo sarreeyey ayaynu intaas ku marnay. marka waxaa imanaysa haddaba in yaran ku darno insha allahu tacaala, ma badinayno. haddii fain khafa dabtu yiri, haddii xifdigii qofkii warkii uu maqlo qaabkii u sugayey, haddii xadiidkii 100% uu sidiisa u xifdiyey warkii, xifdigiisa waxaan waa xifdi dhammaystiran, waa taamu dabt. laakiin hadduu intaa ka hoos dhaco, tinaanu xifdigii wuxuu marayaa 90%, hoos buu u soo dhacay, xadiidkaas waxaa la leeyahay falxasanu lidaatihi. cadlinimadii waa meesheedii, qofkaas waa cadli, qof shaksiyadiisii la duraya ma aha, waa qof alla ka cabsi leh, isdhowra, muru'adiisii iyo wax kasta ay u dhowran yihiin. laakiin qofkan xifdigiisii baa xoogay hoos uga soo dhacay darajadii saxiixa uu ku noqon lahaa. maadaama uusan darajada saxiixa xifdigiisu gaarsiisnayn, waxaan leenahay xadiidka qofkaasi soo wariyey waa xasan. waxaan leenahay xasan sidiisuu xasan u yahay, sidii saxiixu uu sidiisa iskii uu ahaa saxiix ayuu kana iskii u yahay xasan. marka uma baahna wax kale inuu ku tiirsado si uu xasan u noqdo, isagaa isku filan, xasannimadiisu isugu filan yahay. xadiidkaas xasanka ah marka dariiqyo badan hadduu ku yimaado, qofkan darajada waxaan u soo dhinnay oo aan saxiixnimadii uga soo dejinnay in xifdigiisa isdhimay, waayo shaki baan ka qabnaa qofkani warka sidiisii ma u soo gudbiyey. haddii dariiqyo badan uu ku yimaado xadiidkaasi, dariiqyada badan waxay inoo xoojinayaan oo inoo caddaynayaan qofkani warka uu sheegayo inuu yahay war jira. sida awgeed kalsoonideennii ayaa kor u kacaysa. kalsoonideena dariiqyada badan aynu ka helnay waxaan keenaysa inaan xadiidkan waa saxiix. maadaama dariiqyo badan uu ku yimid, way isxoojinayaan, way iskabayaan, kabacdina kor bay u kacayaan, saxiixnimay gaadhayaan. laakiin asalkii hore muu ahayn saxiix, iskii saxiixu ma ahayn. sida awgeed saxiix lidaatihi ma aha, iskii saxiixu ma aha, waa saxiixun ligayrihi, cid kaluu ku tiirsan yahay. maadaamay istaageereen oo ay iskaalmeeyeen, waa saxiixun ligayrihi ayuu noqonaya. cid kaluu ku tiirsan yahay, saxiixun lidaatihi ma aha. sidoo kale marka xasankii waxa keliya ee saxiixnimada hoos uga soo ridaya waa xifdigaas hoos u dhacay. marka xifdigii waxaynu nidhi shuruuddii xadiisyadu si u buuxiyeen ayay ku kala darajo sarreeyaan. haddii laakiin xifdigii hoos u dhaco, xasanun lidaatihi ayuu noqonaya. dariiqyo badan bikathrati turuqihi, dariiqyo badan hadduu ku yimaado warkaasi, tusaale ahaan 5 dariiq oo iswada xoojinayaan helnay, xadiidkan dariiqyadiisa markaan isu geyno kalsooni waxaan ku haynaa inuu xadiidkan saxiixnimo gaadhayo, kor ha loo qaado. waxaan leenahay waa saxiixun ligayrihi. sida awgeed xadiisyada waxaan u samayn karnaa darajooyin ay kor ugu kacayaan. waxaan leenahay xadiidka ugu hooseeya waa xadiidka daciifka ee marduudka, ma qaadanayno isaga, ma qaadanayno, waa marduudkii. laakiin haddii aan helno xadiidyo badan oo daciifa, dariiqyo badan ku yimid, xoogay kalsoonideennii kor bay usoo kacaysa. waxaan leenahay intaasoo qof waxaan ay soo warinayaan been ma noqon karo, waxbaa ka jira.
sida awgeed kor baynu darajo u qaadayna waxaan leenahay wa xasanun ligayrihi maadaama cid kale ku tiirsan yahay lidaatihi uusan ahayn waxaan leenahay wa xasanun ligayrihi laakiin asalkii muxuu ahaa daciif xadiidkii xasanka ahaa isaguna haddii uu xasannimadii kor uga kaco marka wuxuu noqonayaa saxiixun ligayrihi waayo dariiqyada badan baan ku saxiixaynayna dariiqyo badan baan helnay kor baan u qaadayna darajaan siinayna dheeraada kor baan geynayna xadiidkii saxiixa isagu keligii wuu taagan yahay xifdigiisa hadduu hoos u dhaco xasannimadii wuu soo aadaya kor hadday istaageeraan oo dariiqyo badan helaanna kor bay aadayaan haddii uu wiiqmo oo dhibaato ku timaadana hoos buu aadaya markaas darajooyinkaas iyo jaranjaradaas ayaynu xadiidkii qaadsiinaynaa marka aynu dariiqyada ka hadalno iyo dariiqyada badan faa'iidada ay yeelanayaan waayo markii dad badan ay warkan soo werinayaan waxaanu nidhi dadkaas hadday yihiin dad aan been ku heshiin karin oo aysan suuragal ahayn inay waxaan ku soo ballameen warkoodu waa mutawaatir marka mar kastoo warku bato kalsoonida badanaysa sida awgeed isagoo xadiidkii xasan ahaa haddii kalsoonidii dadkaas maadaama jidad badan uu ku yimid kalsoonidiina waxaan leenahay waan ku kalsoonahay xadiidka saxiix baan ka dhigi karnaa ligayrihi saxiix ligayrihi isaga oo fara badan hadduu kor u kacana oo xifdigii wixii ay iskabaanna kor baan usii qaadan marka intaas ayaan insha allahu tacaala kusoo koobaynaa casharkan وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا